waad arkayseen sida ay hadda u hadleen in marnaba aysan u dulqaadanaynin in ay la diraan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed markay fikireen in meesha laga soo duuliyay ay tahay bartanka Madheera oo laga weeraray gudaha Soomaaliya markay tanaga yaabaan u dhimanay yiraahdeen ragaas waa fikirkooda boqolkiiba boqol aad u wanaagsan yahay mar koowaad mar labaad mar saddexaad waan u mahadcelinaynaa hadaan maamulka gobolka iyo saraakiisha gobolka iyo bulshada Soomaaliyeed ee deegaanka Balaxa oo ku noolba si buuxda ayaa loogu mahadcelinayaa waxaan leeyahay ragga fikir fiican bay qaateen waxaad ogtiin ciidanka kale oo hadda ku jira Balaxa bisha labaad hadda inuu mishaarka qaadanaya dawladda way indha dheer tahay way miisaan badan tahay waxa ay mishaarka u siineysana waxay isleedahay ama raggaas uun ka soo noqdaan maxaan ku raahdaa meesha ka soo noqdaan waa la sugayaa ciidankaas waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa ciidankanagi ciidankan ka tagay in maanta aan dhibaatayna ama aan dilin waxba noo keenaysa in mishaarka laga jarana wax hadda weyn noo keenaysa ma jirta waxa weeye buugi ama liiska la qoray ee taliyaha guutada kormeerka oo ciidanka ku sameeyay oo ciidanka uu soo listeeyay ilaa waqtigan muusan gudbinin salaan kadib runtii waxaan rabaa inaan ammaan iyo bogaadin u jeediyo guddiga maaliyadda runtii guddigaas oo aan aniga taaj dahaba waxa weeye aan usuri lahaa waayo howlo adag ayay waxa weeyaan qabteen haddii isaga uusan ahaan lahayna waxa laga shaqeynayo rajada maanta dalka uu leeyahay mayna gaareen marka aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa waxaan sidoo kale bogaadinayaa dhabar adeega wasaaradda iyo halganka waxa weeyaan ee soo gashay oo arrinta deen cafinta runtii deen cafinta dadaa waxay u haysteen sheekadii alfuleen waleela ilaahayd laakiin hadda ay u dhowdahay inay xaq fahmayaan xaqna sidiisa dadka waa loogu celceliyaa si ay u fahmaan ilaa qaar ama baadilka sida loogu celcelinayo baadilkii xaq u fahmaan marka waan rajaynayaa in sidaa loo fahmo waxaa kaloo ammaan guud ahaan xukuumadda iyo dowladda u jeedinayaa in mishaarkii ciidamada kordhinta lagu sameeyay ay tahay runtii arrin aad iyo aad u wanaagsan una baahan in la bogaadiyo waan rajaynayaa hadda markay deenta oo aanan ogeyn anaga waxaan ku cunay iyo sababta leegu leeyahay laakiin uun leeyahay waa lagu leeyahay marka ay laga dhamaato howlaheedii in ciidamada iyaga il gaar ah waxa weeyaan lagu fiiriyo waayo udub dhaxaad ayay u yihiin dowladnimada iyo amniga dalka intaa kadib waxaan rabaa inaan sakin gareeyo hadalkii walaashay marxuum ugaas ee ahaa codsiga ku darista qoondada loogu talagalay guddigii la dagaalanka gaajada iyo cunayarida iyo nafaqa xumida in ayagana qoondo waxa weeyaan loo raadiyo sababtoo ah waa guddi aad iyo aad u muhiim ah waxaan rabaa dowladda guud ahaan iyo qof kastoo mas'uul ah iyo Soomaalidaba ilaahay caqliga wuxuu noo siiyay inaan ku fikirno sideedaba qofka caadiga ah waxaa la yiraahdaa mushkilada ayuu xal u raadiyaa laakiin qofka caaqilka ah mushkilada ayuu ka fogaadaa inay dhacdo ayuu ka hortagaa sanad kasta hadeertaana dib waxaana haysto siyaasadda in lacag laga sameeyo ama dadka qaarkoodaba inay u fahmaan siyaasadda inay ganacsi tahay siyaasad ganacsideesa hadda waxaa lagu socdo musiibo la ganacsadeenayo oo macnaheedu yahay sanad kastaba fatahaada dhaco dabeelaa dhaco dhibaatooyin kala dhaco haddana isla markaas iyada wax qorshe ah kama jiro sanad kasta waxaa la leeyahay markii waxa ay dhacaan hala soo ururiyo waxbaa la soo ururinaya meelaha ay aadaan waa la soconaa ma aadaan dadkii loogu talagalay adduunyo iyo hebel hana loo soo gurmadaa la yiraahdaa maxaa diiday war diinna lagu sheeg علم مادنا لقشك مركي إلهي وليه تزرعون 7 سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله 7 عجاف و7 سنبلات مركي لليه استراتيجي قال الله يا استراتيجي وحاول يا بريتو وحاب قبصر لهي دباتويك صوص عضا إنا درسته وحي دعين 10 هنات كيف عديست قرآنك معها أنا ذاتك قال سيئو فامين الكوريها لغوها يستيي ذاتك حمصر لغوها أقريه صلاة لغو تكتماها قرآنك معناها الدولة لماذا لنا كجرت لقم فائده فتحات الله السنة اسكو حتى أياد عين مصيبوي كان حتى يدعان كو مدنا وحويان وحي كقلدان دهي دولة قودهان أو إنا لديهن ورأى النقا
dhibaataysan inaan quudino yaanan ka shaqaynin ee waxaan aan ka hortagno oo wixii asbaabihii keenay dhibaatooyadan wixii lagu xalin lahaa aan la imaano bajad aan u samayno labo ragga maamul goboleedyada laftirkooda in lagula xisaabtamo waxyaabaha ayaan darada waxaan ogeyn xilliyadii hore dad la dhihi jiray qashinka aan idinka qaadnay anaga qaadin qashinka waa loo lacag dhihi jiray hadeertaan waxaa timid dad la dhahayo aan idin dhisno war dhibaatooyinka idinku soo socda aan idinka qabano may hanaga qabanina ama qoonda naga siiya percentage naga siiya waxay qayb ka tahay in fatahaadahan iyo musiibooyinkan ay sii jiraan sidaa darteeda wasaaradda waxaan weydiinayaa budget oo kumeel gaar ah iyo budget macnaha oo isu dhaxdaadsan ma ahe maxaad ugu tala gasheen fatahaadaha soo noqnoqday ee labada webi shabeelle iyo jubba dadka saameynta ku leh maanta 500,000 iyo milyan ayaan berito markay musiibada ayaan maanta idin leenahay war milyan aan ugu dhisi karaa ee keena oo meel u dhiga laakiin berito waxaan diyaar u nahay ayaan darada milyankiina inaan bixino ayadoo dadna iyo duunya baabeen maxaa diidayo maanta in aad waxa weeyaan qoonda rasmi ah oo aad dhahaysaan waa in keliya loo sameeyaa waa in suduud ama waxa la yiraahdo biyo xirana loo sameeyaa dams maxaa diidayo oo budgetka ma ugu tala gasheen labo waxaan rabaa arinta walaalaha qaar ay sheegeen oo ah ciidamada gaar ahaan moortaalayaasha kuwa loo yaqaano nabasuudan aniga aqaana oo ah dadkii dhintay laba mid in qofka dhintay Allah u naxariistay oo shahiidka ah oo gacan ku baxay ama si kale u dhintay in booskiisii qof iyaga ay keensadaan oo markaa waxa weeyaan la ciidameeyo ama halka lagu biiriyo ama qofka moortaalaha ciidamada qalabka sida kamid ah xuquuqdiisa inuu helo xuquuqda moortaalayaasha waa rabnaa halka aad waxa weeyaan marisay ama waxaad u qoondaysay arinta ku saabsan 2020 shalay meed waxaa la yiri kii shalay ugu dambeeyay la sii siday shalay waxaan halkan ku ansixinay golaha shacabka sharciga doorashooyinka qaranka kadibna wuxuu u gudbi doonaa walaalaha aqalka sare oo arjeerina ayagana inuu ka soo dhamaado sharcigaas isaga ana ma ahan alif beeta la akhrinayo ma ahan wuxuu u baahan yahay dhaqaale u baahan yahay qoondada loogu talagalay doorashada in loo qabto kulay niman halkan noo fariyo beesha lixada ayay qayb ka bixin doonaan annaga maxaan ugu talagalnay qoontadeena waxa weeyaan diyaar ma ka tahay arinta muhiimadda waxay tahay wasaaradaha dawladdaas ama hay'adaha dawladda qaybahooda kala duwan miisaaniyada wasiir ma iyaga soo gudbiya ayagoo ku bees garanay baahiyahooda mise adiga u dajiya ama wasaaradda u dajisa qodobka ugu muhiimsan oo aan rabo inaan waxa weeyaan ka dhawaajiyo arinta dhalinyarada oo xildhibaanada badalkooda xildhibaan geelay iyo xildhibaanada kale ay ka hadleen haddii la weydiiyo qaraxii shalay ka dambeeyay haddii la yiraahdo waxaan dhihi lahaa amni daraa ka dambeysay amni darada maxaa ka dambeeyo haddii la yiraahdo sabab ah waxaa ka dambeeyo dhalinyarada shaqo la'aanta ka dambeysay quraanka marka dib ugu laawato laakiin akthar an-nas la yaqiluna la yafhamuna la yashkuruna marka la leeyahay waxa weeyaan aqliga yara ilaahay la si inaan ku fikirno waa saxodeen cafinta waxa la yiri waa inaad shaqaale qaadan laakiin basmiya gacmahan isaarana waxaan leenahay in cafinta ku xiranahay shaqaale lama qaadanayo mise aqliyad kale ayaan waxa weeyaan la imaana dhaqaalaha waa wada daristeen waxa la yiraahdo taklifat al-fursa al-badila ama substitute in la isku badbadalo haddii gurigaan uu 5 xabo rooti isticmaali jiray sicirka uu kordho rootiga inta qaadan jirta yareysanaysaa waa la gabalgabaleysanaya haddii shalay aad hilib geel iibsan jirtay hilib geelka qaali uu noqdana kalluuna waxa ku bedelanaya annaga maxaa noo diiday horena waa u sheegay maxaa noo diiday miisaaniyadda xildhibaanada ha noqoto bishaaraadkooda guddoonada ha noqdeen labada aqal wasaaradaha iyo madaxda qaranka ha noqdeen maxaa diiday in wax laga jaro oo lagu badbaadiyo nafaq badan ilaa dhalinyarada haddii sanad kastaba aan jirin dawlad macnaha koontaroosha inta soo qalin jabinaysa inta fursado shaqo taalo isbarbar dhigta aanay jirin oo siyaasad aanay jirin oo jaamacadihii private-yadana aanan xadidneen oo 500 iyo 1000 ay soo qalinjayaan kuwaasi waxay culeys u yihiin amniga ay culeys u yihiin dhalinyarada hadduu waxa weeyaan shaqo waayo wuxuu ku mashquul waxbarashadii uu waay banaanka uu fadhiyo imma inuu xaafadaha iska dhex wareego
imaa inay qowlaysato ka faa'iidaysato dhibkaa waxa waaye lagu fuliyo maxaa diiday in bajedyada iyadaa wax laga jaro oo lagu biiriyo bajet gaar ah oo waxa weeyaan lagu shaqaalaysiinayo dhalinyarada iyada si loo badbaadiyo muxuu ahaa mustaqbalka dhalinyarada iyaga ugu dambeyn xildhibaanada guud ahaan waxaan rabaa inaan u sheego horta dalkeenan waa dal hadda soo korayo miisaaniyadda 400 milyan kan noo qoranna waa la socotaan aniga kolay diaspora ma aheenoo waxaan ahaa dad halkaa ku nool muxuu ahaa dalkaa ku nool aanan ka bixin laakiin waad la socotaan dalalka qaar aad tagteen wasaarad iska daaye agaasin bas inay intaa bajet u tahay laga yaabo immigrationka Kenya inay 400 milyan ay ka badan tahay anagana dawladda ka hadlayna waliba 400 milyan ee sanayn wax anaga gudaha naga soo galay ay yihiin wax umada kale ee la siiyaan wax sadaqa la siiyo malahan cid sadaqa kuriyoolaysa wax hadiya la siiyo malahan wax kasta waa shardiyaysan yihiin waxa ay sameeyay waxaasan ku sameeyna nidaamka dawladnimadan waa fahansannahay nin lillahi isku siinayso waxba ma jiro dalkeenan markuu gaaro marxalad isagoo isku filnaado waa halkeeda laakiin sadaqa waxa waa laga hadlayo sadaqa ma jirto marka la siiyo waxaan rabaa in yar waxaan ka hadalnaa gudoomiye wax yar 1 minute bas waa soo gabagabeena waxaan rabaa mas'uuliyadda la saaran zakada marka laga hadlayo waxa leeyahay aqniyadooda laga qaada dadka hodanka fuqarada la siiya wasiirka waxa ku xisaabtamaysaan maamul goboleedyada iyo mashaariicda iyo waxyaabahaas isla sidaas oo kale waa inaan maamul goboleedyada kula xisaabtanaa maxaa ku qabateen mashaariicda lacagta liisii ma ku qabateen dhalinyarada shaqaalaysiin ma ku qabateen waxaad waa inaan weydiinaa ma ahan hal dhinac inaan u jihano waa mahadsantiin shukran assalaamu calaykum